ka tarjuma baahidooda loona xoojiyo dawladnimada amniga iyo adeegyada bulshada. Hirshabeelle waxaa dhidibada loo taagay sanadkii 2016 iyadoo madaxweynihii u horeeyay la doortay 17 Oktoobar 2016. madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa xilka madaxweynenimo loo doortay 12 Novembar 2020 iyadoo madaxweyne ku xigeenka loo doortay madaxweyne Yuusuf Axmed Hagar Dabageed. muddadii uu xilka hayay madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe waxaa qabsoomay waxyaabo badan oo ah horumar la taaban karo, gaar ahaan dhinacyada dawlad-dhiska, daadejinta xukunka, amniga, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo hirgelinta mashaariicda horumarinta bulshada. amniga iyo cadaaladda. Hirshabeelle waa meeshii ugu horeysay ee laga sameeyay macawisley, dadkeeduna waxay sidoo kale ku suntan yihiin inay yihiin dadkii ugu horeeyay ee kacdoon hubaysan kala hor yimaada khawaarijta, waxaana ay u horeen wixii ugu qaalisanaa ee la bixiyo oo ah naftooda iyo maalkooda iyagoo kaashanaya ciidamada xoogga dalka. abaabul aad u ballaaran ayaan galnay, gulufaan colaadeed aan ku qaadnay nimanka la yiraahdo shabaab. dawladda dhexna waa ammaanaya oo madaxweynaha dalka iyo ra'iisul wasaare u horeeyaan siday hor kaceen la dagaalanka argagixisada. reer Hirshabeellena waxaan rabaa guud ahaan inaan idhaa waa mahadsantihiin kaalinta muuqato ee aad ka qaadateen la dagaalankii argagixisada. waxaa barbar socday dhisidda ciidamada booliska iyo daraawiishta Hirshabeelle oo ka howlgala dhammaan degmooyinka ay ka kooban tahay Hirshabeelle, kuwaas oo kaalin muuqata ka qaatay amniga iyo xasiloonida deegaanada. dhismaha wasaaradda amniga oo maraya heer gabagaba ah ayaa ka mid ah waxqabadka la taaban karo. dhammaan degmooyinka Hirshabeelle waxaa loo sameeyay saldhigyo boolis si loo daadejiyo amniga, loona abuuro kalsooni bulsho iyo in degmo kasta amnigeeda la xaqiijiyo. degmooyinka loo sameeyay saldhigyada booliska waxaa ka mid ah Aadan Yabaal, Matabaan, Maxaas, saldhigga booliska garoonka diyaaradaha Beledweyne iyo saldhigga booliska garoonka diyaaradaha Jowhar. waxaa mas'uuliyadda iska saaray in ciidanku ay helaan tababaro, gaadiid ciidan, saad, caafimaad iyo gunnooyinkooda oo joogta si kor loogu qaado xirfadooda loona xoojiyo awoodooda ciidan. wasaaradda amniga Hirshabeelle waxay hirgelisay siyaasado muhiim u ah horumarinta iyo hagidda howlaha amniga, kuwaasoo kala ah xeerka booliska Hirshabeelle, xeerka xakamaynta hubka iyo siyaasadda shirkadaha amniga gaarka loo leeyahay. dhisay nidaamka maxkamadda iyo xeeraalinta ilaa heer degmo ah, iyadoo degmo kasta loo sameeyay xarunta maxkamadda degmada, taasoo kaalin weyn ka qaadanaysa in bulshada Hirshabeelle ay helaan nidaam cadaalad loo sameeyay. mashaariicda horumarinta bulshada. waxbarashada. muddadii ay jirtay dawladda uu hogaamiyo madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe waxaa lagu guuleystay in kor loo qaado tirada ardayda aada iskuullada iyadoo la dhisay iskuullo cusub, lana dayactiray kuwo hore, iyo sidoo kale fasallo cusub oo lagu soo kordhiyay iskuullo hore u jiray. waxaa la dhisay 23 iskuul cusub, waxaa la dayactiray 11 iskuul oo burbur ku dhacay, waxaana fasallo cusub lagu soo kordhiyay 15 iskuul. iskuulladan ayaa ku kala yaalo degmooyinka kala ah Beledweyne, Matabaan, Jalalaqsi, Buulo Burde, Farlibaax, Jowhar, Mahadaay, Balcad, Warshiiq, Cadale iyo Raagaceelle. tirada ardayda ayaa kor loo qaaday 5 sano ee ugu dambeysay iyadoo hadda ay yihiin 148,000 oo arday. 5,000 oo arday oo ka mid ah ardaydaas ayaa sanadkan u fariisanaya imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare. 143,000 oo arday ee dhigata iskuullada ayaa isugu jira 76,000 oo arday oo wiilal ah, 67,000 oo arday oo gabdho ah, iyo 9.8 oo arday oo agoon ah. 103,000 oo ka mid ah ardayda waxa ay dhigtaan dugsiga hoose dhexe, 19.7 oo ardayna waxa ay dhigtaan dugsiga sare, halka 20.6 oo ardayna ay dhigtaan waxbarashada dadka waaweyn. sidaad ogtihiinba bulsho haddaan dhanka waxbarashada iyo tacliinta aan laga dhisin horumar weyn ma gaari karto. wax badan ayaa u qabsoomay wasaaradda waxbarashada, iskoolaad badan ayaa la dhiso cusub, kuwa badanna waa la dayactiray, kuwana fasallo dheeriya lagu diray. arda aan dhihi karno number aad u weyn muddadaas 4 sano iyo ardada numberka ku kordhana runtii wax weyn ku kordhay dhanka waxbarashada. Hirshabeelle wax badan ayaa u qabsoomay. caafimaadka.
iyadoo laga duulayo muhiimadda uu caafimaadku u leeyahay bulshada ayaa xoogga la saaray si dadka nugul ay ugu horeeyaan hooyada iyo dhallaanka ay u helaan adeegyo caafimaad oo dhammaystiran. waxaa la hirgeliyey xarumaha daryeelka hooyada iyo dhallaanka kuwaa oo kale ah xarunta hooyada iyo dhallaanka Xaawo Taako ee Beledweyne, xarunta hooyada iyo dhallaanka Siigaalow Beledweyne, xarunta hooyada iyo dhallaanka Buulo Burde iyo xarunta hooyada iyo dhallaanka Kulmis ee magaalada Jowhar. waxaa sidoo kale la hirgeliyey mashaariic lagu hagaajinayo adeegyada caafimaadka aasaasiga ah kuwaas oo daawo, qalab iyo mushaar siiya 31 xarumood oo hooyo iyo dhallaan, 24 xarumaha caafimaadka aasaasiga ah, 4 isbitaal degmo iyo 1 isbitaal oo heer gobol ah. waxaa la dayactiray isbitaalka gobolka Hiiraan oo lagu sameeyey ballaarin iyo qalabayn casri ah si bukaanada degmooyinka gobolka u helaan adeegyo caafimaad oo dhammaystiran. waxaa sidoo kale dhismo uu ku socdaa isbitaalka gobolka Shabeellaha Dhexe oo noqon doona mid u adeega dadka degan degmooyinka gobolka Shabeellaha Dhexe. tallaalka carruurta ayaa sidoo kale laga hirgeliyaa dhammaan xarumaha caafimaadka ee deegaanada Hirshabeelle. biyaha iyo korontada. biyaha waxa ay ka mid yihiin waxa ay ugu baahi badan yihiin dadka degan Hirshabeelle maadaama ay yihiin dad beeraley iyo xoolo dhaqato isugu jira. waxaana dhacda in marka uu roobku yimaado ay dhibanayaal u noqdaan biyo badan. waxaan hirgelinay mashaariic lagu horumarinayo biyo-xireennada oo laga sameeyay dhammaan deegaanada Hirshabeelle. waxaa ugu weyn mashruuca biyo-xireenka Saabuuni oo ah mashruuca ugu weyn ee Soomaaliya ka socda maanta, kaasoo maraya heer bilow ah. waxaana la dhisi doonaa kaydka biyaha oo wax weyn ka qaban doona biyo baxadda iyo biyo la'aanta xilliyada abaaraha. sidaan wada ogsoonnahayba meelo badan ayaa oon ka jiriyey oo ka fog webiga, ceelala laga qoday, meelana wara biyo qabadyaa aa laga qoday. runtii ceelalna waa la dayactiray, iyadana baahi badan oo bulshada reer Hirshabeelle ay qabeen ayaa maanta laga gudbay. insha Allah wixii dhimanna waxaan rajaynayaa guud ahaan inaan gaari doono oo waqtigan saas u fogeyn reer Hirshabeelle iyadana baahida biyaha ay daboolmi doonto haddii Ilaahay raalli ka noqdo. mudane ra'iisul wasaare ku soo dhow Hirshabeelle, gaar ahaan mashruucaad maanta u timideen ee sabuun haddaad maqasho waa buundada gadaashayna. waa meesha biyaha markii webigu biyo keeno oo saa'id u buuxsama laga neefi jiray. biyahan halkaanay ka bixi jireen, waxay tegi jireen ilaa Xawaadley. Xawaadley waxaa ku yiilay dhul biyo qabad ah amba kaydka weynaay ee Xawaadley ku yiilay. xilligu webigu biyo yareeyeen Xawaadley buundooyin kale oo sida hadda kuwaad aragtaa ku yiilay. albaabadaas la furi jiray, webiga lagu celi jiray. laba faa'iido ayuu ummadda u lahaayo mashruucaanu. markii webigu buuxsamo oo khatar la dareemana waa lagu neefi jiray. si loo qabtiro baahiyaha loo qabo biyo nadiif ah, waxaa ceelal biyo laga qoday degmooyin badan kuwaas oo daboolay baahiyaha bulshada iyo xoolo dhaqatada. waxaana sidoo kale la hirgeliyey waraha biyaha qabta oo laga sameeyay degmooyin badan. xagga korontada, mashruuca uu maalgelinayo Bangiga Adduunka ayaa ka sameeyay magaalada Beledweyne mideynta shirkadaha korontada iyo in la maalgeliyo shirkadahaas si ay u soo saaraan koronto nadiif ah, qiimo jaban, kuna filan baahida magaalada. beeraha iyo waraabka. deegaanada Hirshabeelle oo caan ku ah beeraha waxaa lagu tilmaamaa inay soo saari karaan cunno ku filan Soomaaliya oo dhan haddii la horumariyo wax soo saarkooda beeraha. sidaa darteed waxaa xoogga la saaray in iskaashatooyinka beeraha laga dhiso dhammaan degmooyinka Hirshabeelle kuwaas oo kaalin muuqata ka qaata wax soo saarka beeraha. beeraleyda ayaa loo qeybiyey agab ka saacidaya beeraha sida cagafka, abuurka beeraha iyo qalabka yaryar oo ay baahi weyn u qabeen xilliyada beera tacabka. wasaaradda beeraha iyo waraabka ayaa xoogga saartay sidii loo horumarin lahaa wax soo saarka bariiska Jowhar, kaasoo maanta laga cuno qaybo badan oo dalka gudihiisa ah. tababarada beeraleyda iyo ka shaqaynta isdhexgalka beeraleyda labada gobol ayaa ka mid ah shaqooyinka la qabtay sanadihii ugu dambeeyey, iyadoo sidoo kale aad looga caawiyay beeraleyda in la dhiso lana dayactiro kanaalada biyaha waraabka soo maraan iyo in carratuur loo sameeyo meelaha uu webigu ka jilicsan yahay si uusan ugu fatahin beeraha. xanaanada xoolaha. wasaaradda xanaanada xoolaha Hirshabeelle ayaa hirgelisay goobo lagu daweeyo xoolaha oo laga sameeyay dhammaan degmooyinka Hirshabeelle. waxaana sidoo kale la sameeyay suuqyo casri ah oo lagu iibiyo xoolaha, kuwaas oo leh meel xoolaha iyo dadkuba ay ka galaan qorraxda kuna nastaan, meelo ay biyo ka cabaan iyo goobaha laga raro lagana soo dejiyo xoolaha oo casri ah si loo ilaaliyo badqabkooda.
wasaaradda xanaanada xoolaha oo muhiimad gaara siinayso sidii ay xoolo dhaqatada ugu badbaadi lahaayeen xoolahoodu xilliyada abaaraha ayaa hirgelisay mashruuca beerashada calafka kaasoo la kaydsan karo iyo in xoolaha caymis la geliyo si dadka wax uun loogu caymiyo marka ay xooluhu ka dhintaan. howlaha guud waxaa xoogga la saaray dhismaha wadooyinka iyo erebootyada iyadoo laga fikirayo kaalinta weyn ee ay ka qaadan karaan horumarinta bulshada. magaalada Beledweyne ayaa laga hirgeliyay 4 wado oo waaweyn sida wadada aada erebootka Beledweyne, wadada aada dhinaca degmada Farlibaax, wadada aada dhinaca degmada Ceel Cali. wadada afaraad ayaa ah midda dhex marto magaalada taasoo isku xirta xaafadaha Buundaweyn ilaa xaafadda Horwadaag. magaalada caasimadda ah ee Jowhar waxaa laga hirgeliyay 3 wado oo muhiim ah kuwaas oo iyaguna qayb weyn ka noqonaya horumarinta dhaqaalaha iyo fududeynta isu socodka. hirgelinta xarunta kormeerka tayada dhismaha ayaa iyaduna ka socota magaalada Beledweyne taasoo lagu kormeeri doono dhammaan qalabyada dhismaha ka hor inta aan wax lagu dhisin. dowladda Hirshabeelle ayaa hirgelisay garoon diyaaradeed cusub oo laga dhisay degmo xeebeedka Cadale, waxaana sidoo kale terminaal cusub lagu soo kordhiyay garoonka diyaaradaha Jowhar iyadoo horumarin iyo xeendhaab loo sameeyay garoonka diyaaradaha Beledweyne. garoomada diyaaradaha Hirshabeelle ayaa qayb weyn ka ah isu socodka dadka iyo fududeynta ganacsiyada kuwaasoo isku xira degmooyinka iyo caasimadda. dhismaha xarumaha hay-adaha dowladda ayaa ka mid ah howlaha muhiimadda la siiyey, waxaana la dhisay madaxtooyada Hirshabeelle, guriga martida, xarunta baarlamaanka, wasaaradda maaliyadda, wasaaradda caafimaadka, wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda amniga. garoomada kubadda cagta ayaa sidoo kale laga hirgeliyay inta badan degmooyinka Hirshabeelle, waxaana sidoo kale la dhisay xarunta dhalinyarada Jowhar iyo isbitaallo heer gobol iyo heer degmo ah. hanaanka horumarinta maaliyadda wasaaradda maaliyadda Hirshabeelle ayaa kor u qaaday kalsoonida lagu qabo hanaanka maaliyadda dowlad goboleedka Hirshabeelle iyadoo hirgelisay habka maareynta maaliyadda ee daahfurnaanta Public Financial Management. sanadihii lasoo dhaafay waxaa kor loo qaaday miisaaniyadda iyo dakhliga dowladda Hirshabeelle. waxaa la mideeyay canshuurta kastamyada ee lagu qaado stateka iyadoo ku dhacda hal akoon oo midaysan. miisaaniyadda sanadkii 2018 waxa ay ahayd 10.7 milyan oo dollar. miisaaniyadda sanadkii tagay waxa ay ahayd 44.6 milyan oo dollar. miisaaniyaddu waxa ay kor u kacday 316% taasoo u dhigantay celcelis ahaan in 7 sano ee lasoo dhaafay sanadkiiba ay miisaaniyaddu kor u kacaysay 45.26% dakhliga. waxaa la mideeyay dhammaan dakhliyada ka soo xarooba kastamyada kala duwan kuwa oo sanadkii 2018 ahaa 633,563 dollar. dakhliga sanadkii tagay ee 2025 waxa uu ahaa 7,679,949 dollar. dakhligu waxa uu kordhay 1,025,035 taasoo u dhigantay celcelis ahaan in 7 sano ee lasoo dhaafay sanadkiiba uu dakhligu kor u kacayay 146.48%. dowladiska iyo daadejinta federaalka wasaaradda amniga gudaha Hirshabeelle ayaa hirgelisay xarumaha maamulka 10 degmo. xarumahaas ayaa ka qayb qaadanaya ismaamulka degmooyinka iyadoo la daadejinayo hanaanka federaalka. 5 sano ee lasoo dhaafay waxaa wasaaradda arrimaha gudaha ay suura gelisay in maamulka golaha deegaanka loo dhiso 4 degmo oo kala ah Jowhar, Warshiq, Mahadaay iyo Balcad. maamuladaas oo ay dadku soo doorteen ayaa waxa ay tusaale u yihiin sida ay shacabka degan Hirshabeelle ay diyaar ugu yihiin hanaanka doorashooyinka qof iyo codka ah ee dhawaan laga hirgeliyay waddanka. waxaa wasaaradda arrimaha gudaha u suura gashay 3 sano ee lasoo dhaafay in caasimadda Jowhar la isugu keeno gudoomiyaasha 2 gobol, dhammaan maayarada iyo gudoomiyaasha degmooyinka Hirshabeelle si loo abuuro hanaan isdhexgal maamul iyo in ay wadaagaan khibradahooda iyagoo dhexdooda wax kala baranaya. dhammaan ka soo qaybgalayaasha sanad kasta ayaa aad ugu mahadceliyay wasaaradda arrimaha gudaha Hirshabeelle. ummadda reer Hirshabeelle waa uga mahadcelinayaa safafkii dheeraay ay u galeen inay isdiiwaan geliyaan xaqooda ay ayagu leeyihiin oo dastuuriya waayay waa xaq ay ayagu leeyihiin oo dastuuriya waa ku amaana safafkii dheeraay ay u galeen inay isdiiwaan geliyaan. dhammaan waxaan leeyahay hal lees wada diiwaan geliyo si birri cidaad ka aragto maslaxadaada aad u dooran karto waa inaad isdiiwaan geliso. waxaan leeyahay guud ahaan hal la qaato hal lees diiwaan geliyo birrina codkiina dhiibtaan leeyahay
وحقوق الليدين وتستوريه قفل بحقوق إلى تستورية هسيس وقت جيدا إني قاعدته حقوق هذا waxaa dib u heshiisiin loo sameeyay qabiilo ay dhex taalay colaado soo jireena kuwaas oo ku heshiiyay nabad iyo ku wada noolaanshiyo iyo ilaalinta sharciga dawladnimada. wasaaradda qorsheynta dawladda Hirshabelle waxa ay dhamaystirtay qorshaha horumarinta labaad ee dawladda Hirshabelle 2024 ilaa 2030. qorshaha horumarinta labaad ee dawladda Hirshabelle waxa uu ka kooban yahay 4 tiir oo kala ah. tiirka koobaad oo ah dawladnimada, amniga iyo sareynta sharciga, governance, security and rule of law. lacagta lagu maalgelinayo ayaa ah $275 milyan. tiirka labaad oo ah horumarinta dhaqaalaha, economic development. lacagta lagu maalgelinayo waxay tahay $380 milyan. tiirka saddexaad oo ah horumarinta arrimaha bulshada, social development. lacagta lagu maalgelinayona ay tahay $350 milyan. tiirka afraad oo ah deegaanka iyo isbeddelka cimilada, environment and climate change. waxaa lagu maalgelinayaa lacag dhan $195 milyan. guud ahaan afarta tiir waxaa ku bixi doonta 2026 ilaa 2030 lacag dhan $1.2 bilyan.